munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Damal ee magaalada Hargaysa ayaa waxay shirkadda Ban Factories Company ee ay xarunteedu tahay magaalada Nairobi ay ku daafuraysay girgiraha Chicagowa oo casriya kaas oo ku sahlaya inuu ku kaydiyo dhuxusha wax lagu karsado waxana girgirahani aad isticmaali karaysaa muddo dheer munaasabadaas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Somaliland xildhibaano ganacsato dadweyne kala duwan oo hore u isticmaalay girgirahani Chicagowa iyo gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Ban Factories Company ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay agaasimaha guud ee dhulalka Soomaalida ee shirkadda Ban Mohammed Ismaan. Ban manufacturing is located in Kenya. It's a company located in Kenya. It manufactured the Jiko Okoa product. It's meant for three things. We have sold the classic for the last 5 years. The person who started the group, the company that started this, their intention was to actually save families from a safety point of view, from savings of the families, and from environmental point of view, and from health. Now, when you look at all that, we have saved $75 million in sub-Saharan Africa alone in the last 5 years. xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii ka socday xukuumadda ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay dalkana maalin walba waxaynu arkaynaa horumarkiisu inuu kor u kacayo oo maalin walba waxaynaan hore u arki jirin ay soo kordhayaan waa arrin casri ah waa arrin aan soo dhaweynayno gol ahaan sida marka uu loo sheegayo uu yahay inuu faa'iido badan u leeyahay deegaanka waayo wuxuu tashiilayaa dabkii ama dhuxushii ayuu yareynayaa faa'iido ballaaran buu u leeyahay girgiraha kan beekhaminaya ama yareynaya tamarta ama dabka aad buu faa'iido inoogu leeyahay geestooda shirkadda Somaliland u qaabilsan keenista girgirayaasha casriga ah ee Al-Sadiq iyo dadweynaha kala duwan ee isticmaala girgirahani ayaa bogaadiyay shirkadda Ban macaamiisha waxa lagu bushaareeyay in girgiraha Chicago uu yahay original guarantee 2 sano ah labadaas sano qofku kaga xumaada wuxuu keenayaa xarumaha yaga dumarka iyo hooyooyinka waxa lagu bushaareeyay si aynu deegaanka wada ilaalino lacagta badan ee ku khasaarinaysan dhuxusha si uu yaraato isticmaala girgiraha Chicago waxaan kamid ahay isticmaalayaasha in muddo badanaba isticmaalay girgirahan sanad iyo waxoogay wax aad u wanaagsan mustaqbalkeennana wax badan lagaga badbaadayo haddii ay dhuxul tahay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo gunaanaday madaxweyne ku-xigeenka shirkadda Ban Company Casriya waxaanu bulshada Somaliland iyo Soomaalidaba ugu baaqay inay isticmaalaan girgirahani isagoo sheegay inuu faa'iido weyn leeyahay intaasi kadib waxa goobtaasi shirkaddu ay martida ka soo qayb gashay munaasabada ku maamustay girgirayaashani cusub waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargaysa.